xabsigan waa mid ka mid ah xabsiyada ugu adag wuxuuna leeyahay ilaaliyayaal aad u fara badan mana jirto cid si fudud kaga baxsan karto markii lagu xiro laakiin waxaa kaliya jiray 3 maxbuus oo ka baxsaday xabsigan weyn tirada maxaabiista qorsheynaysa inay ka baxsato waxay ahaayeen 30 balse 30kaas oo idil kama baxsan dadka ka baxsaday waa dad tiradooda aad u yar tahay maxaa ku dhacay sidee ayay kaga baxsadeen xabsigan muddo intee leeg ayay ku qaadatay inay ka baxsadeen xabsigan muuqaalkan ayaan kuugu sharxayaa wax walba oo ka dhacay gudaha xabsigan magaciisa iyo maxaabiista ka baxsatay u diyaar garow kani waa mid ka mid ah xabsiyada ugu ilaalada adag kuna yaala jasiiradda San Francisco waana xabsi ay ilaaliyaan ciidamo Mareykan ah waxaana loogu magac daray xabsigii Alcatraz xabsigan waxaa lagu xiray dambiilayaal galay dambiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin dilal mana ahan xabsi si fudud looga baxsan karo laakiin madaxdii Mareykanka iyo FBI-da dalka Mareykankaba waxaa ka yaabiyay kiiskan oo ilaa iyo hadda aan loo helin xal si rasmi ahna aan loo faahfaahinin bishii June 1962 3 maxbuus oo lagu kala magacaabi jiray Frank Morris, Clarence Anglin iyo walaalkiis John Anglin ayaa ka baxsaday xabsigan Alcatraz balse ka hor baxsashadooda maxaa lagu soo xiray raggan dambi noocee ah ayay sagaleen 3 nin waxaa loo xiray in ay dhac ka geysteen gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan ay dhaceen bangi weyn oo ku yaala gudaha dalkaasi marka koowaad waxaa la xiray Frank Morris oo ah ninkii ugu horeeyay ee koowaad ee lagu xiray xabsigan kana mid ah 3 maxbuus waxaana lagu xiray xabsigan ku yaalay jasiiradda San Francisco ee Alcatraz xabsigan markii la geliyay ninkan muddanu isaga jiray waxaa gadaal looga daba keenay 2 nin oo lagu kala magacaabo Clarence Anglin iyo walaalkiis John Anglin labadan wiil ee walaalaha ah xabsiga ayaa iyaguna la soo geliyay waxayna ku biireen ninka lagu magacaabo Frank Morris laakiin horey ayay isku yaqaaneen iyagana waxaa loo soo xiray in ay dhac ay geysteen xabsiga sida ay ugu jireen raggan waxay hal mar ku fikireen in ay ka baxsadaan xabsigan sanado badan ayayna ku fikirayeen qorshaha ah inay ka baxsadaan xabsigan qorshe dheer ayay dejinayeen waxayna sanado fara badan isku dayeen sida ugu fudud ay kaga baxsan karaan xabsigan iyo in aan la qabaninba qorshaha fikirka wuxuu ku qaatay 18 bilood waxayna markasta isku dayeen in ay ka baxsadaan xabsigan aadka u halista badnaa maalinba maalinta ka dambaysa waxay horey u qaadayeen hal talaab oo ay kaga baxsan karaan xabsigan kuna darso waxay ahaayeen 3 maxbuus oo isfahamsan 2 wiil oo walaalo ah iyo ninka lagu magacaabo Frank Morris dhammaan 3dooda xabsigan ayay ku jireen waxaa sidoo kale xabsiga kula jiray maxaabiis kale oo aad u fara badan oo iyaguna mar uun doonayay in ay ka baxsadaan xabsigan wuxuu sidoo kale lahaa waardiyaal aad u adag laakiin qorshaha raggan ay isticmaaleen waa mid halis ah waxay isticmaaleen qaandooyinka cuntada ku cunaan ayay keedsadeen qaarkoodna waxay u isticmaali jireen in ay si tartiib ah xabsiga ugu qodaan kadibna ay ka baxsadaan haddii xabsiga laga baxsadana waxaa aad u adkeed in la maro biyaha si walbay ahaato waxay isticmaali jireen qaandooyin iyo waxyaabo kale iyo biyo qaandooyinkaas ayayna maalinba maalinta ka dambaysa si tartiib ah godkan aad aragto ugu qodayeen maxaabiista qorsheynaysa in xabsigan ay ka baxsato waxay ahaayeen 30 qofood laakiin 30kaasi qofood waxaa kaliya ka badbaaday 3 nin 2 wiil oo walaalaha ah iyo ninkan kale qaarkood waa la toogtay qaarkood waa la dilay qaarkoodna dhaawacyo aad u daran oo gaaray darteed ayay u geeriyoodeen si walba oo ay xaaladdu ahaato iyo si kasta oo maalmaha u sii socdaan 12 June 1962 maxaabiistan waxaa u suurta gashay in ay ka baxsadaan xabsiga laakiin waxay ahaayeen 4 maxbuus laakiin mid ka mid ah maxaabiistaas ayaa isagu la qabtay kaas oo u suurtageli weysay in uu ka baxsado xabsigan 3 kale waa ay baxsadeen ilaa iyo haddana lama oga meel ay jaani cirib dhigeen marka raggan ay baxsadeen subaxdii ku xigtay waxaa gudaha xabsiga galay ilaaliyaashii iyo waardiyaashii xabsiga loogu talagalay inay ilaaliyaan waxayna u tageen sariirta raggan oo bannaan cidna oo aysan jiifin waxaana sidoo kale markaas kadib ogaadeen in raggan ay baxsadeen kiiskan ilaa iyo hadda ma jirto qaab loo xaliyay ragganna raq iyo ruux meel ay jaani cirib dhigeen waa la waayay wixii intaasi ka dambeeyay waana mid ka mid ah kiisaska ugu yaabka badan ee ka yaabiyey guud ahaan madaxdii dalkaasi hogaaminaysay xilligaas iyo madaxdii sirdoonka dalkaasi Mareykanka ee FBI-da
iyo dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa gudaha dalkaasi maraykanka, gaar ahaan jasiiradda San Francisco lagu magacaabo. ilaa iyo hadda kiiskan waa mid aanan la xalin, jawaabna loo waayey. raggan oo keliya ayaana ka baxsaday xabsigan aadka u adag, aadna u adkeed in si fudud looga baxsado. wuxuuna ka mid yahay xabsiyada ugu adag dunida. taariikhdana saddexdan maxbuus ayaa ka baxsaday: Frank Morris, Clarence Anglin iyo walaalkiis John Anglin. waana ragga keliya ilaa iyo hadda taariikhda lagu hayo ee ka baxsaday xabsigan. qaando iyo waxyaabo kale ay u isticmaaleen. 18 bilood ayayna ku qaadatay in ay ka baxsadaan xabsigan weynaa ee ku yaalay jasiiradda San Francisco. raggan jaan iyo cirib meel ay dhigeen lama aanan arag. wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaa la waayey meel ay ku nool yihiin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. tan iyo muuqaalkeena xiga imaaninta berri waxaa idiin rajeyn caafimaad, bashbash iyo baraare. waxaan ahay Juula Shaakir. amaana Allah. fadlan haddii aadan subscribe saarin janaalkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno.